بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijkeennan kooban waxaan kaga hadlaynaa mooshinka laga keenay Aadil Madoobe guddoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed waa aynu bogaadinayno oo taageerayno oo aynu talooyin siinayno ayaynu ku soo qaadanaynaa marka sii gudbiya marka ugu horeysa oo meel dhaadheer geeya waxaan idiin sheegayaa baarlamaanka federaalka waxa weeye waxaad ogtihiin baan idiin sheegayaa waxaad ogtihiinna waxa weeye meesha dalku uu ka dumay waxa weeye maxaan ku raday dhibaato oo dhammi ay ka dhalatay waxa weeye maxaan ku cid kastoo wax xumaysayba dhashay waa idinka weeye hadduu madaxweyne yahay hadduu guddoon baarlamaan yahay hadduu golo wasiirre yahay cid kasta oo dalkan u adeegaysay muddadii aad joogteen idinka ayaa sharciyeeyey sharciyadda idinkaa siiyey idinkaa doortay marka waxa weye wax kastoo ay qabteenna oo dhibaato ah oo ay dalka u geysteenna amaam allah idinka ayaa laydin weydiin doonaa idinka ayay buugga idinku jirtaa idinka ayaa ilaahay idinkula xisaabtami doonaa maxaantidii dalka iyo dadka iyo dastuurkii iyo xeerkii lagu heshiiyey waxa weye wax kastoo ka qalloocda iyo waxa weye maxaa ku dhahday magaranaysaa sharaftii iyo karaamadii dalka intaba idinkaa laydin weydiinayaa marka maadaama intaba laydin weydiinayo oo ilaahay aada la hortegaysaan godkii yaraana aada la gelaysaan inta yoomal qiyaamahana waxa weye su-aalaha laydin weydiinayo ay ka mid tahay aadna ku naar mudan kartaan waxaan leeyahay mooshinkaasi waa inuu dhacaa sida ugu wanaagsan ugu macquulsan oo aan fitan lahayn oo maskax iyo xigmadi ku jirto oo maslaxadda dalku ku jirto oo maslaxadda dadku ku jirto oo maslaxadda diintu ku jirto inuu mooshinkaasi u dhaco aadan madoobena aad iyo aad baan u codsan lahaa inuu iscasilo inta aan waxa weeye isaga la casilin inuu isagu iscasilo aad baan u codsan lahaa waxaan xusuusinayaa doorkii hore waxa weeye jawaari hadallo uu ku lahaa oo miidiyaha ku jira oo miidiyaha lasoo dhigay oo uu yidhi waxa weeye maxaan ku dhahday marka guddoonka mooshin laga keeno shir ma guddoomin karo waxa weeye maxaan ku dhahday golaha ma hogaamin karo isaga ayaa laga hayaa oo hore uu yidhi saa darteed waxa weeye waa inuu dhegaysto kana waa inuu wareejiyaa guddoonka waa inuu wareejiyaa oo guddoon ku-xigeen guddooma maxaa ku xubnaha ku xiga golaha maxaa ku dhahday hoggaanka kale ee maxaa ku dhahday xubnaha ku xiga waa inay xilka la wareegaan waa inay mooshinka qabtaan waa inay maxaa ku dhahday sida ugu wanaagsan ay u maamulaan haddii uu helo oo cod ku filan uu helona uu ku joogana waxa weeye maxaa ku dhahday idinkaa mas-uuliyadda iska leh haddii ay magaranaysaa noqoto in xilka laga qaadana anoo kula talin lahaa halista uu dalka geliyey iyo dariiqa uu dalka ku hogaaminayo iyo hagardaamada saddex jirsatay iyo dhagaraha faraha badan leh iyo dhawaaqa kasoo yeedhaya caalamka intaba inuu dhegaysto oo uu iscasilo oo sharafta uu ka raaco taa ayaan horta usoo jeedinayaa hadduu taa diido waxaan leeyahay insha allah bismillaahi kariim waa inaad waxa weye maxaa ku dhahday baarlamaanku shaqaystaan baarlamaanka waxaa laga doonayaa madaxda waxa weeye maxaa ku dhahday caadaysatay inay waxa weye siday doonaan dalka ka yeelaan dhammaantood in lala xisaabtamo in waxa weeye ummadda soomaaliyeed laysu keeno in cid waliba xaqeeda hesho in waxa weeye maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday dalku uu helo geed gogol wanaagsan iyo geed fadhi wanaagsan iyo guurti wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo culimo wanaagsan iyo shacab wanaagsan wuu leeyahay halkii waxa weye maxaa ku dhahda laga maxaa ku dhahda hogaamin lahaa golaha baarlamaankana wax allaale idinkaa matela culimadii idinkaa matela oo dhaqankii idinkaa matela oo siyaasiyiintii idinkaa matela oo bulshadii idinkaa matela sidaa darteed waa inaad waxa weeye shaqada laydiin igmaday ee aad magaranaysaa dadka ummadda u haysaan siday tahay aada u qabataan waxa weye fadhigana aad ka kacdaan dalkana aada badbaadisaan waxaana leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin waafajiyo rabbiga weyne waaxidka ah haydin waafajiyo oo haydin garansiiyo sidaan sheegay waxa weye maxaa ku wax allaali wixii waddanka ka dhacay 3 sano idinkaa la tegaya ilaahay hortiisa la tegaya amaam allah waxa weye hadday hanti la dhacay tahay hadday musuq maasuq tahay hadday waxa weye dastuur lagu ciyaaray tahay
hadday waxa weeye dayacaad tahay intaba idinka ayaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya wax allaale wixii dibidhacee dalka ku dhacay mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadanaya maadaama mas-uuliyadda aad qaadanaysaan hadda isa saxa oo ishagaajiya oo waxa weeye maxaa ku dhahday hadda qabta wixii ma garanaysaa maxaa ku dhahday toobad keena oo hadda qabta wixii hadda ka dambeeya wanaag iyo samafal iyo adeegid bulsho iyo daacadnimo ku shaqeeya dalkana badbaadiya madaxdana la xisaabtama cid kasta oo aan dalka u adeegayn danta dalka iyo dadkana ka shaqaynayn iyo diinta ka shaqaynayna waa inaad waxa weye maxaa ku dhaha si adag ula xisaabtantaan haddii aanad xisaabta aanay qaadanayna waa inaad ka hor wareejisaan dadka insha allah bismillaahi kariim aad iyo aad baan idin salaamaya guulaysta baan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu